السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة channel كيجا مجيء وحاوي توريسي كران ما أنت مهلا أسعدا إن برف بدن ونود أي أوقات يعني أقرح بدن ما شاء الله مركا حربي فيديو كسابسن ناشينها إنا سميو مركا حاسة هاي محاكا في عن أضو بنانك أسعتيد بو إنا فيديو كجارسيسيد oo maxaa la dhahaa sheeg video ku saabsan shiinaha aad dugtid marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ku noolaashaha dalka shiinaha see waaye haddaa arday tahay haddaa tahay qof bes imaanayo oo ganacsi ahaan u imaanayo kaleeto marka kusoo dhawaada videoga waxaan rajeynayaa inaad ka heshiin قروح برفك أنا برفك زايدة وشعلها ما فهمتي يا مركا إيمانة عينا وبكنت حد رب من البرفك ده هنا إماضة كاس برفك شعلها سايدين شيء شينها نحن ليه هاي قبل لا آد وكل الدول أو محل ده هاي شيء يعني قبل برف رن كده ينجرو إيوه قبل أو برف رن كده مركا أنا برفك زايدة وشعلها هاي mana idibo soo saas darteeda meeshaan waa ku heystaa ma jiray dhowr qodob baa idin sheegi doonaa oo ku saabsan ku noolaashaha shiinaha aan ka hadli doonaa insha Allah marka ugu horeyso maxaa ka hadlaa dalka shiinaha cimiladiisa ka hadlaa maadaama hadda oo cimilada zaid ugu enjoy gareynayo quruxda barafka zaid ugu enjoy gareynayo waxa ka bilaabayaa cimiladiisa isane way kala duwan yihiin soo afarta cimilo adduunka laga yaqaano afarta way soo martaa saasay ku fiican tahay sheeg ani waxa ugu jecel walaa iyaga dhan wada jecelahay because Chinese kana iyaga dhan ku jeclaysiinayaan sababtoo ah season kasto yani waxay u ekeysiinayaan xilligiisii markuu winter yahay waxay sameynayaan decoration oo magaalada oo dhan wada winter ah hadduu summer yahay magaalada dhan summer waxa la sameynayaa decoration oo summer ah geedaha nafaqo lagu duraa si ciyoon u soo baxaan oo ciyoon adduunka isla markiiba cagaar u noqdo flowers lagu abuuraa meel kasto so flowers u soo baxo qurux badan marka ma sha Allah tabarakallah ani dadkan zaid u taageeraa ma fahantay marka cimilada noqoto is my favorite wallahi hadda waxa kale oo aan ku jecelahay wadanka Shiinaha maxaa waaye nabadda wadankan hadaa ilaa hal wax ku dooro waxa waaye nabadda meesha nabad taalo nolol taalo ma fahantay qof kaligiis habeenkii 8 saac haduu isdhaho bax oo wax doono kaleeto ya si amaan ku baxasi amaan ku soo laabana yani wadankan waxyaabaha number 1 ku waxa waaye amaanka yani amaanka heerka ka gaareen wadamo ka gaaray aad u yarihiin sababta oo yani oo u suurta gelisay in asaastan amaan u noqotaan waxa isdhihi karaa marka ugu horeyso dawladooda waxay ku dadaashay in oo dadka baahidooda ay xaqabtirto ma fahantay yani waxay ballan ku qaadeen or sano ka hor dawladan in ay wadankan dadkooda ay simi doonto ee dadkana baahida ka bixin doonto ay ballan ku qaadeen marka hadda heer waxay gaareen oo almost qof shaqo la'aan uu san jirin ay gaareen ma sha Allah tabarakallah يعني taas waxay ka caawinaysaa in tuugnimada ay yaraato because dadka badana tuugnimada maxaa u geeyo baahiya u geeysa badana in dadka tuugnimo ay soo kordhaan taas waxay ku cadeynaysaa wallahi dadkan gaalada marka aragtid dhaqamadooda waxa isleedahay ayaga naga muslimsan markii loo barbar dhigo wadamada muslimiinta u dhaqmaan marka ma sha Allah tabarakallah taas wax looga dayado waaye oo mudan in looga dayado nabadda mid labaad waxa keenaysa in wadankan nabad ay noqoto waxa waaye كاميرا ميل كست كدغن laamiyasha ku dhagan tahay sheeg dukaamankay ku dhagan tahay guri kasta hortiisa ku dhagan tahay xitaa meesha qashinka lagu tuuraa way ku dhagan tahay marka taas waxay ku cadeynaysaa in oo yani amaanka uu 100% uu sugan yahay haday wax ka dhumo kala maanta ama qof wax ka xado kale daqiiqada lagu soo saara qofkaas for example wiil waxa jira hadda ka hor mar aan sheeg maxal aakadi gobol kale mobilkiisa ka damay wuxuu uga soo dhaxtay taxi ku jirnay taxi numberkiisa ma heeno lacagta meesha ugu tuurna xitaa meel laga daba kici kara ma ahayn oo hadaa isdii lahayn numberka waca meel laga raaci kara ma ahayn marka waxa dhacday in oo laba bari ka bacdi ninkii la helo telefoonka la helo samirada meesha uga deganay
meesha ka soo raacnaa la weydiiyey xilligaa soo raacnaa la weydiiyey iyo meesha uga deganay iyo xilligaa ka deganay macluumaadkaas markay heleen kaamirada soo qabatay sheeg taksiga asaarneen waa la daba kacay ilaa meesha ugu dambaysa uu tagay meeshu ka soo jeedaa la ogaaday kaamirooyinka xitaa waxaa laga dhex arkay numberkiisa kale taksiga numberkiisa laga sii dhex arkay waa la xiriiray sidiyaana lagu soo helay adi baacay shida watacab sidiyaa lagu soo helay mobilkii xitaa ninka inuu qarsado isku day laakiin sababta uu qarso waayay waxa waaye daba joogan oo yani laga hareynin waaye ma fahamtay uu isku dayay inuu la dhuunto telefoonka laakiin uu la dhuuman waaye marka taasna waxaa suurta gelisay kaamiradan meel kasta ku dhagan ninkii macluumaadkiisa lahaayo ma fahamtay waxaa isdhihi karaa waxyaabaha kale ugu wacan nabadda dadkan waxaa waaye waxay ku dadaaleen dadkooda inay shaqo u sameeyaan qof oo shaqo haysaninba aad iyo aad u yaryahay ma fahamtay qof walba shaqo haystaa taasna waxay ka caawinaysaa in oo dadka tuurnimo ku dhaqmin lacagtooda xalaasha ay shaqaystaan ee wax ku qabsadaan hadda waxaa arkaysaa dadka oo xitaa duqyaasha oo shaqayn karin waxaa la dhahay meel 1 mitir camal xaaqa la dhahay halkaas mitir ay xaaqayaanne meel nadiif ay sii nadiifinayaan haddii aragtid duqyaashooda sababtoo ah inta lacag ku filan lagu siinaa marka taas waxaa dhihi karaa sheeg waxaa waaye istiraatiiji fiican oo dowladooda ay u soo dejisay qodobka kale arab inaa ka hadlo waxaa waaye nolosha meeshaan yani si raqiis u tahay wadankan noloshiisa aad iyo aad raqiis u tahay hadaa dhahdid maanta guriga kireysanaya waxaa laga yaabaa inaa ku heshid $80 bishii $80 ilaa $150 u dhaxaysa adiga waxay ku xiran tahay guri noocee aarasho qolal single room oo wax walba dhex yaala helaysa guri 3 qol ka kooban oo wax walba dhex yaala helaysa lacagtoodana $80 ilaa $150 ee u dhaxayso sheeg يعني ورقيس آدي رقيس أتهاي بيل كاغو كلاته وحا كوغو فيلان $200 عمل وكوغو فيلان تهاي هذا هالقف تهاي ماشان أرضيه بدنا وحي سميان هذا حاسس ليهين وكله حاسس كودي صوتان المي ماشان كودالان مفهمتين ولشن وانا ويك بيحي كرام مركا ونوال آدي رقيس midka kaleeto dadkan waa dad aad iyo aad u soo dhaweyn badan dad furfuran dad faraxsan ma sha Allah tabarakallah marka yani waxa uga baahtidoo kaleeto inay ku caawiyaan diyaar u yihiin way og yihiin meeshan inuu foreigner badan jirin dad badan oo ajaanib ah inaysan jirin markay arkaan qof ajnabi ah waxay isdhahayaan qofkan wadankiisu ka maqan yahay caawin u baahan yahay ee caawi sidoo kaleeto waxa isdhihi karaa midaas dadka inay noo furfuran yihiin waxa keenayso way jecel yihiin inay ajaanibta arkaan inay dad kala duwan ee arkaan zaid u jecel yihiin marka adigoo jidka iska maraysid waxa laga yaabaa inay kugu soo cararaan sawiraan kula galaan iska wareystaan ay ku dhahaan qof madow intuu ka yimaado qofkan maxaa la xijaabka maxaa ku xiray iska fur hooyada wadankaaga hooy ma joogtid yani qofku uu qasbaysan male marka waxay aaminsan yihiin inuu yani waxaan uu waalidkeen ugu qasbaayo ama dhaqan ee tahay ma ogi inay diinteena tahay badanaa marka waxay ku dhahayaan nku taawo karnaa waxaan maxaa xiran tahay marka qosolkay kaa dhammeynayaan wallahi way kugu soo cararayaan sawiraanay kula gelgelayaan maxaa la dhahaa sheeg mar waxaa waaye intayd camera iska soo baxsadaan waxay ku dhahayaan saaxiibkii waaye laago intaas waxay ka rabaan yani inay meel social media ayaga soo dhigtaan marka waxay iska dhigayaan qof saaxiib kula dadkooda waxaa ku jecelahay caafimaadkooda zaid uga taxadaraan ma fahamtay subaxii 12 saac haddaad baxdid meelaha oo ma arkin oo lagu soo socdo way joogaan waxay ciyaarayaan ayaga dance ciyaaraan oo jimicsi camal ah dadkoodu marka community-ga meesha xaafadda dadka isla degan isku soo baxayaan sameecad weyn ay soo qaadanayaan music iska daaranayaan way jimicsigaas ku ciyaarayaan sidoo kale to maqribadii oo kale hadda soo baxdid sidaas oo kale to meelaha si joogtaagan yihiin jimicsi ciyaarayaan ama waxa arkaysaaba koox dhan oo ku soo heshiisay inay ordaan intaas oo mitir koox dhan oo ku soo heshiisay inay exercise la sameeyaan marka dadkan caafimaadkooda zaid uga taxadaraan qof cayilan ina aragtid waxa waaye way adag tahay because ay dhan cayilka la dagaalaan meel kastana waxa waaye moogtahay cayilka waxa waaye aabaha cudurka waaye marka dadkan waxay ka taxadaraan in oosan yani oo cayil uusan korin marka activity sameeyaan badan inay fadhiyaan way iska ilaaliyaan haddii dadkan oo sharci raaca la dhahana wallahi si toosana u raacan fahantay waxa aaminsanahay wallahi dadkan yani way u dhagal nugul yihiin dowladooda
because sharcigii iyo shaqadii iyo wax walba seedka u qabsanayaan ma fahamtay waa dad jecel inay shaqaystaan waa dad jecel inay horumar gaaraan wax cusub soo saaraan maxaa la dhahaa ii sheeg waxbarashada xooga saaro ilmahooda yaryarka waxaa waxbarasho looga soo bilaabaa asoo oo yacni 2 jir 3 jir looga soo bilaaba in oo la baro luqado in la baro music sida loo ciyaaro yani ayaga kulli yani waxay jecel yihiin inay baraan piyaanada sida loo garaaco gitaarka sida loo garaaco cunugu waxaa arkaysaa 5 sano jir oo waxaanoo lesson u yaala markuu ka imaado meelaha carruurta lagu haayo marka ilaa yani heer jaamacad ay kasoo gaaraan ilaa ay kasii dhameeyaan waxay jecel yihiin waxbarashada inay zaid ugu dadaalaan waana sababta hadda keentay dadkan in ay horumar waqti yar gudihiisa ay ku gaaraan waxaa waaye si dadkooda wax u bareen ma fahamtay ay u dhiirigeliyeen hadda xitaa dadka ardayda ajaanibta oo kaleeto si u dhiirigeliyaan waa yaabaysaa waxay sameeyaan ardaygoo kaleeto oo for example arday waxaa jirta ayaga iska bixisa lacagta markay imaadaan marka waxaa jirta marka activity-yaal ay ku dhahayaan ka qayb gal activity-yaashaas haddaa ka qayb gashid oo jaamacadda waxay ku siinayaan lacagtaasaaba lacagta jaamacadda dhan iskaga bixin kartaabo ama yani bil dhan biil kuu noqonayso xitaa waxaa laga yaabaa inay dalxiis kuu wadaan oo kale meelay kuu wadaayaan oo kusoo wareejinayaan marka dadkooda wallaahi dhiirigelintay ku fiican yihiin especially marka waxbarashada la dhaho kale oh my god hataa dhaho dadkan cuntadooda ka hadla I cannot wallahi dadkan cunto meel uga soo hareen haddii la dhaho cuntada dhadhankeeda haddii la dhaho cuntada decorationkeeda maxaa la dhahaa ii sheeg yacni street foodkooda cuntadooda very unique waayo wallaahi cuntada caalamka aad iyo aad uga duwan tahay cunto caafimaad laa cunaysaa muhiimadda waxaa waaye inaa meel xalaala heshid ani alxamdulillah shukla hadda gobolkaa joogo 9% waxaa dhihi kartaa meel muslima waaye ma ahan gobolka oo muslimiinta hadda lagu yaqaano oo iyagu kala dhaho laakiin waxaa waaye gobolkan gobol kaleeto oo isagana muslim waaye marka haddaa banaanka aadabo cuntooda xalaalaa dhooban wax walba xalaal waaye meeshan hadda ani aad joogo maasha allah laakiin gobolkan gobolka ka horeeya aad joogay cunto xalaala maysan jirin soo badana waxaa ku qasbanaa inaan ani cuntadeeda aan karsado ama maqaayada oo ajaaniibaa helaayo qodobka kaleeto oo waxaa waaye aan rabo inaan ka hadlo waxaa waaye transportationka dadkan yacni transportationkooda suu u yahay amazing waa ka yaabaysin hal app aa u baahan tahay inaa yacni wax walba ku samaysid haddaa u baahan tahay inaa baabuur ku dalbatid ama sheeg haddaa raacaysid bas oo kaleeto baska lacagtiisa aa ku bixisid waxaa jiro aabab oo maxaa la dhahaa maap ku siinayo exactly meesha u baahan tahay inaa bas ka raacdid exactly meesha u baahan tahay inaa bas kaga degatid yacni wax dhib ku dareemaysid transportationkooda ku soo haray subwayadooda subwayga waxaa waaye tareenka yarka oo tareenka yacni ma ahan oo gobolka gobol isku aado tareen yaraa jiro oo isla magaalada dhexdiisa ku socdo tareenkaas yarka ahna meelaha qaar yacni haddaa aragtid istoobyadiisa waxaa is leedahay ma airport miya airport su weyn yahay waana bas oo yacni tareen oo yaroo magaalada dhexdiisa loogu talagalo waaye baafadda quruxda soo jiidashada weyninka waa ka yaabaysaa marka waxay leeyihiin basaskaas yararka ayagana aabay leeyihiin oo maapkooda arki kartid meesha ka raacaysa meesha ka deganaysid aaday u fududahay ma ku wareeraysid mar hataa baratid aabka sida loo isticmaalo haddaa jeenay maadid waxaa waaye aaday kuugu fududaanaysaa midda kaleeto waxaa waaye luqadda kaleeto maxaa la dhahaa barashada luqadooda zaa'id ay u dhib badan tahay laakiinse haddaa yacni ku dadaashid oo isku daydid oo dhahdo waa baran karaa wallaahi waa baran kartaa aniga anoo oo luqadaha jecelba oo luqadda ingiriiska iyo luqadda carabiga si fiican u aqaano marka isku dayo luqadda Chinese inaa barto aad iigu adkaato run ahaantii laakiinse mar waxaa jirto oo yacni nafteeda ka dhaadhici ma baran kartid markaasna maysan ii fududayn inaa barto laakiinse go'aanaa qaatay inaa baranayo luqadooda adiga 6 bilood gudahoodana waa ku bartay marka taas waxay ku cadeynaysaa maskaxdaada waxa ka dhaadhicisid waa taa maskaxdaada ka dhaadhicisid wax weligaa ma baranaysid haddaa laakiin maskaxdaada ka dhaadhicisid wax waa la baran karaa waana baran kartaa waana samayn kartaa naftaada aad challenge garaysid waa baranaysaa waddankan zaa'id u weyn yahay haddaa dhahdid waa ku dalxiisaane ii sheeg ma ka dhammaanaysid waxaa jirto bad waxaa jirto buur waxaa jirto ii sheeg xeebo aad u qurux badan meelo oo maxaa la dhahaa ii sheeg yacni waagoodii hore ee dhiseen oo ah traditional I don't know Soomaali si loo dhawaa iloobay meel oo dhaqan yacni dhaqankoodii hidahoodii yacni aa ugu tagaysid dabaqyadoodii hore se u dhisnaa jireen aa arki kartid waxyaabo oo hore waa arkaysaa waxyaabo cusub oo modern ah waa arkaysaa because ayaga say u dhisteen ay u diyaarsadeen waa si caalami ah ma fahamtay
meelaha qaarne waxaas dhahaysaa ma waxaa joogaa 100 sano ka hor meel oo yacni ahayd camal maa ku noolahay because saas waayba meeshii 100 sano ka hor la dhisay sidii weli u taalaa marka والله هو amazing wax walba oo arkaysaa meeshan dalxiiskana way ku fiican tahay because laga start ina aadid waxa ku taagi kartaa lacag aad iyo aad u qiimaheeda u jaban mid labaad dadkan see horumarka u gaaraan is something else dadka hadda la soo dhaafay dabaq la dhisay oo waxa arkaysaa hadda la degay oo yani la diyaariyay oo waxna u dhimanay developmentigooda zaaid uu dhaqsi u yahay wax walba hadda laamiya markay dilka hor waxa laga yaabaa kullu abtid in bridge laga dhisay isla marka ismahana zaaid yani u sameeyaan horumarka zaaid u jecel yihiin isbedelka wadankooda ka dhacayo waa too fast yani zaaid uu yani uu dhaqsi u yahay ma fahamtay marka ma sha Allah tabarakallah la dhihi karaa wallahi si horumarka u jecel yihiin xitaa meeshan horumarka waxyaabaha horumarka lagu gaaro waxa kamid ah mataqaana markii la dhahayo wadan oo kale in oo la sameeyo cilmi baaris research in la sameeyo marka cilmi baaris aad sameeysid waxa ogaanaysaa meel wax ka jiro wax lagu soo kordhin karo waxa ka maqan dadkan waxay isku dayaan baahida inay tiraan yani baahida dadkooda inay tiraan isku dayaan wax kasta oo caqabad noqon karto wax kasta oo dhibaato noqon kartana waxay isku dayaan inay xallin karaan oo kale ma fahamtay inay dhibaato kasta inay xalliyaan isku dayaan maanta hada maskaxdaada wax ku soo dhaco wallahi waxa jeclaan lahaa qalab oo saanisan u yeelay inaa helo ya YouTube waxa galaysaa meesha aabkooda galaysaa wax lagu gado waa raadinaysaa wuu ku soo baxaa ma fahamtay it's so amazing wallahi marka qaar waxa isdhahaa like dadka maskaxdooda ma aqriyaan mise waxay isdhaheen problem kasto oo ay face gareeyaan meel ay ku qoraana jirto hadhowna dad oo problem ka xalinaya ma jiro macnaha ma fahamtay because problem kasto jiro wax walba caqabad kasto jirto dadkan waa inay xaliyaan ku dadaalaan ma fahamtay waxyaabaha horumarka lagu gaarayna kamid tahay wallahi so amazing meeshan horta sida oo Europe oo kale tama ahan oo hada yani dhowr sano aad joogtid aan sharci helay sidoo kale saas ma u shaqeeyaan visa meeshan lagu joogaa viisahaaga hada u imaaday sabab ganacsi hada u imaaday sabab oo maxaa la dhahaa isha kaleento oo ku saabsan waxbarashada kale viisahaaga maalintu ka dhaco waa meeshan inaad ka baxdo hadii kale waa lagu canshuuraya videogeyga maanta intaas uga soo hadlaaya zaaid u dhaxamooday gacmihii ay istaagay marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen videogeyga noteskeyga meeshaan ku soo qaatay lacala hadaa wax ilooba soo xasuusto waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideen videogeyga subscribe like haydi iloobina maca salaama bye bye